السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالك الصوت عالم كدوكتان داود يا الكسور دوادا ما أنت برنامج أندوني إن كفر عن قينه داودي بدأ الصومالية يا كينيا قبل لعبة الشلي مقالة هيك ودن كالنيدرلاند دعوadaasi maanta ayaa waxa ay gashay wajigii labaad ee dhageysiga dacwadaasi waxaana halkaasi ku sugan qareennada u doodaya ummadda Soomaaliyeed iyo lahaanshaha badda Soomaaliyeed. Dacwada ayaa waxa ka baaqday sida la sheegay qareennadii dawladda Kenya u doodi lahaa isla markaana doonaya inay difaacdaan baddaas. Waxaana la sheegay in siyaabo kala duwan u soo gudbiyeen cusyo ah in mar kale dib loogu dhigo maxkamadda iyo dacwadaasi. waxaa ka mid ah waxyaabaha ay ku doodeen in cudurka dilaaga ee COVID-19 uu halakiyay dhaqaalahoodii isla markaana aysan awoodin dhaqaale ahaan inay diyaariyaan dacwadan isla markaana ay ka qayb qaataan hadal jeedinta dacwadda badda Soomaaliyeed ee laga sugayo dawladda Kenya inay ka qayb qaadato. haddaba saddex maalin ugu horeyso ka bilaabanaysa shalay ayaa waxaa lahaa dawladda Soomaaliya si wanaagsan ayayna u bilaabeen dacwadaas. dawladda Kenya ayaa shalay si toos ah ula soo xiriirtay maxkamadda howladaanada waxaana ka codsadeen 30 daqiiqo oo ay doonayaan inay ku sharaxaan sababta ay doonayaan inay uga baaqsadaan imaantinka ama imaanshaha dacwadaasi. hadalkaasi ama codsigaasi ka yimid dawladda Kenya waa laga diiday maxkamadda gaashaanka ayayna u daruurtay waxa ay sheegtay in daqiiqad xataaba yaraatee aan la sugu doonin in Kenya ay ka hadasho ama ay soo jeesato codsi ah dib u dhigitaan dambe laga yeelanayo kiiskaasi dhex yeelay iyada iyo Soomaaliya. haddaba Soomaaliya maxay uga dhigan tahay ka maqnaanshaha maxkamadda ee dawladda Kenya qareenadeedii waxaa arintaasi aan weydiinay ummadda Soomaaliyeed. haddaba commentiga hoose noogu soo qora sidaad u aragtaan anaa idin sii sheegaya. Soomaaliya iyo gabi ahaanba ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku joogto meel kasta ay uga nooshahay caalamka waxay uga dhigan tahay guul maadaama Kenya kama qanaashaheedu oo aniga noo horseedayo ku guuleysiga dacwadda baddaas. inkastoo aan horay u lahayn haddana dacwadda la geliyay in aan kala noqono aan kaga guuleysano dawladda Kenya ayay noo horseedaysaa inoo fududeynaysaa dawladdaas kama qanaashaha dawladda Kenya ee dacwadda ka taala maxkamadda Hague ee waddanka Netherland. haddaba ummadda Soomaaliyeed siday uga falceliyeen sideenay u arkeen. haddaba waa kuwana qaar ka mid ah ummadda Soomaaliyeed oo ku sugan maxkamadda caalamiga ah International Court of Justice ee Hague lagu magacaabo ICJ lagu magacaabo iyagoo hortooda tuban ee ay hogaaminayaan dad iskood isu abaabulay ee Soomaaliyeed ee ka kala yimiday wadamada ku dhow ee Yurub sida waddanka Jarmalka, Netherland waa Netherland halkay ku tiile Norway, France iyo kuwa kale fara badan. sidoo kale wafdigii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda federaalka ee Soomaaliyeed Mahdi Guuleed ayaa asigana gaaray shalay halkaas. haddaba ummadda Soomaaliyeed shacabkii isxilqaamay ee tagay maxkamadda horteeda ila daawada sida ay uga falcelinayaan iyo sida ay u muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan Kenya waxyaabaha ama dacwada beenta ah ay ku wada badayna ila daawada. waxaan rajaynaynaa guul baa maanta rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed ee halkan isugu yimi. waxaan rajaynaynaa inay dadkaasi ka garaabi doonaan dastuurayaasha kiiska ku jira oo Soomaali guulaysan doonto. saasaan rajaynaynaa. الله يديك قولي ان شاء Uhuru down, down, Kenya down, down, Sakadudu down, every down, but the Nordic, Somalia Hanolato, 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 High Srado, Sakadudu down, Kiyati down, Waka Saya, Dutki Somalia done, Dutki Somalia don't waka, Somalia good. Kenya guuldara u rajeynayna dadka Soomaaliyeed waa kuwaas dareenkooda lama qiyaasi karo
lama qiyaasi karo halkaa la hoganayaa waxa weeye dawladdii oo xataa tiri barnaamijyadii laga diiday dadka holanka ahaa waddanka u dhashay xataa wakaa Soomaali waa xanibaadaasi waa ku shaqayn la'dahay waxaan rajaynaynaa soo dhow waxaan ahay dadka ku sugan maxkamadda ICJ iskala maalintii maxkamadda ay bilaabatay ilaa hadda waa taaganahay waxaa jira Soomaali badan oo ka imaatay dalka Jarmalka oo Shiina xulay sida arkayseen hadallada ay ku dhawaaqayaan waa hadallo aad u wanaagsan isla markaana ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin baddooda iyo dhulkooda in dacwo la geliyo kaliya ma ahan dadka halkaas ku sugnaay ee ka falceliyay arrinkan adduunka dacaladiisa ayay dadka siyaabo kala duwan uga falceliyeen isla markaana ay u muujiyeen dareenkooda ku aadan dacwadaas dawadayaal kumantigiina adinkana ku muujiya sidaad u aragtaan dacwadaas annaga guul bay nooga dhigan tahay waana guulaysanay sidaad arkaysaan 4 maalin ayay Soomaaliya lahayd in laga dhageysto dacwadaasi markii ay soo ilaatay 3 maalin oo ugu horeysa Kenya ayaa 3 maalin lahayd 3 maalin kadib Kenya Soomaaliya ayaa maalin lahayd maalina Kenya 4 maalin oo Kenya meesha inay ka baxday ayaan rajaynaynaa wallow maxkamaddu hadda ay tiri ha socoto Soomaaliya dacwadeedu go'aanka kama dameystaana waxaa gaari doona maxkamadda howlwadeenadeeda ay yiraahdo go'aanka sanadda sida aan ogsoonahay xeerarka caalamiga ah waxa uu noqon doonaa sidii awalba anagu aan filayna ahaday in aan anagu leenahay baddaas badda anaga iskale dhulkayna baddayna birigeena iyo cirkeena hawadayna cid aan ogolnahay ma jirto gorgortana kaba geli maynaba sidaa darteed ummadda Soomaaliyeed waa guul bay kaga dhigan tahay guul baynu leenahay guul baynu leenahay Soomaaliya way guulaysatay dabadhilif dambana warka lama dhageysanayo ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kasta oo caalamka ka joogtana waxaan ugu mahadcelinayaa sida ay ugu riyaaqeen guushaasi noo soo hoyatay ee hordhaca ah iyo waliba sida ay uga falceliyeen iyo sida ay uga dhiidhiyeen iyo sida ay dareenkooda kala duwan ay u muujiyeen aad baan ugu faraxsanahay arrinkaas waxaan leenahay waa arrin aad u wanaagsan Soomaaliduna ha isgarab istaagto isqabqabsiga iyo isqabqabkana iska daayo meel iska dhigo marka arrimaha noocan oo kale ay timaado Soomaaliya waxaan leenahay ha naqato far hamidoodo hamidnima horumar lagu gaarayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة المقال كان سيشة قرية كومنتيجا شير ترى يا لايك ترى هكذا ما منا السبسكرايب ترى نود ذا وما ستين وأنا جالس صاحبكين عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة يا كلام كلام وحيصله